wadanka oo burburay 25 sano burbursanaa dadkii dhashay waqtigaas ama dadkii yaraa oo runtii aan oran karo mayna aragba sharci iyo nidaam iyo kala dambeyn dadka marka in sharci iyo nidaam lagu soo celiyo waxay u baahan tahay waqti dheer wax sahlan ma aha waxay u baahan tahay juhdi ballaaran oo dhinac walba leh oo wacyigelin leh oo culimadu ka qayb qaadato oo hay'adka dawladda oo dhan ay ka qayb qaataan oo shacabka ay shakhsiyan loo abaabulo si ay u fahmaan ahliinta sharciga iyo kala dambeynta dadkii loo tuso xuquuqda ay leeyihiin iyo waajibaadka saaran in badan oo kamid dadku waxay garanayaan oo kaliya inay xaq u leeyihiin inay noolaadaan inaan la xirin inay hadlaan laakiin haddana mas-uuliyadda saaran oo inay qodob ku xadgudbayaan ama oga marka fahamka dadka ee sharciga lagu rabo in lagu dhaqan geliyo waxay u baahan tahay waqti dheer wayna runtii caqabaadka ugu weyn oo xafiiska ay ka mid tahay caqabadaha ugu waaweyn oo kale oo aan oran karo way haystaan waxaa ka mid ah in maaragtay runtii la qabyaaladeynayo sharci la qabyaaladeynayo faldambiyeedkii la qabyaaladeynayo qofka dambiilaha ah oo la qabto oo xadgudubka sameeyey in loo ogoleen in uu sharcigu ka oofsado wixii waajibaada oo saaran markiiba ama ha noqdo mas-uul ama xildhibaan ha noqdo ama nabadoon ha noqdo ama ganacsado ha noqdo la daba ordaayo oo isagoo qaab qabiil iyo qaab loo daba ordaayo ayna suurtagal ahayn marka in lagu dhaqan geliyo qofkii sharciga marka caqabaadku waa badan yahay golaha adeega garsoorka ayaa la yidhaahdaa golaha adeega garsoorka runtii dowladnimada saddexda tiir oo ay ku dhisan tahay dowladnimo markay noqoto waxaa weeye waa garsoorka oo tiir ah fulinta oo tiirka labaada iyo golaha sharci dejinta oo tiirka saddexaada saddexdaa tiir hadduu mid maqan yahay labada kale ma shaqayn karaan waxaad moodaa marka in golihii adeega garsoorka oo labada galo oo golaha fulinta iyo golaha baarlamaanka u dhigma in runtii aad loo fududaystay aadna loo dayacay taas oo keentay marka in waajibaadkii badnaa ee ummadda ka saarnaa inay golahaas qabtaan uu meesha ka baxo marka golahan runtii waajibaadkiisu waa fara badan yahay waa golaha la rabo inuu digo habeen caama uu ku sameeyo garsoorka wadanka oo runtii aad ogtihiin habaxsanaanta iyo khalalka ka jira aad ogtihiin ummaduna ay kala degsantahay waa golaha la rabo inuu garsooryaalka la xisaabtamo uu saxo waa golaha la rabo inay dalacsiiyaan inay xuquuqdooda raadiyaan dhammaan shaqaalaha garsoorka oo dhan cid kastaba noqdaan waa golaha la rabo inuu dib u dhiso iskuulkii la oran jiray justice academy ama tababarka garsoorayaasha iyo xeragaas lagu tababar lahaa intayna noqonin waa golaha la rabo maxkamadii dastuuriga ahayd oo runtii tiirka ugu weyn maanta wadanku u baahan yahay ka mid ah inay dhistaan laga rabi waayo marka golahan runtii waa golaha loogu talagalay wax alla wixii garsoor ah oo dhan inuu maareeyo iyo caqabadaha ka jira iyo cabashada ku jira isagina ma dhisna marka hawshaas oo dhan buu la maqan yahay horta ciddii samaysay iyo ciddii ku shuqullada fiicnaan leh su-aasha in la weydiiyo anagu dhulalka iyo dacwooyinka madaniga xafiiska xeraalintu lug badan kuma laha waxaa iskale ama garsoor ha noqdo ama gobol ha noqdo ama hay-ado kale ha noqdo idaari weeye waa dacwo madani ah weeye ficlanna wayna soo gaartaa cabashooyin badan oo laga cabanayo qaabka loo maareynayo loo abaabulayo ama looga shaqeynayo cabasho aad u fara badan bay leedahay dacwooyinka madaniga ama ha noqdaan dhulal ama wax kalaba ha noqdaane xafiiska xeraalinta wuxuu kusoo geli karaa oo keliya saddex xaaladood saddexdaa xaaladood hadii la helo xafiisku involved ka noqonaya haddii agoon iyo caruur iyo dad jiran iyo dad waayeel ah uu dacwadaas dhinac ka yahay xafiiska ayaa u leh qaanuuniya inuu difaaca dadkaas inuu u doodo xuquuqdooda u raadiyo usoo dhexgeli karaa haddii faldambiyeed uu ka dhashay dacwadaas madaniga ka dhex dhalato haddii dagaal dhaco kuma dibeen abuur ah oo mafoojiri ah uu ku jiro waxaasoo dhan marka xafiisku uu soo dhexgeli karaa maxaa yeelay criminal case ba ka muuqda tan saddexaadna wuxuu kusoo dhexgeli karaa oo keliya markuu arko danta guud ee sharciga ama cadaaladda in ay ku jirto inuu xafiiska soo dhex galo maxaa yeelay haddii khalad weyn uu ka imaan karo hay-adahaas xafiiska xeraalinta wuxuu ku khasban yahay ama xadgudub ku imaan karo wuxuu ku khasban yahay ama qaanuunku siinaya inuu soo dhex galo haddii fulin sharci darro ahayd ay socotay oo kale inuu soo dhex galo maxaa yeelay danta sharciga ayaa ku jirta
ama dacwooyinka hadda socda oo dhulalka iyo cidda laga xubnayo iyo cidda la siinayo iyo cidda lagu wareejinayo cidda laga qaadayo waxaa iskale hay-ada u gaara marka iyagaana habboon in wax laga su-aalo arrinta dacwadda annaga iyo dowladda kenya naga dhexaysa iyo dowladda soomaaliyeed waa arrin runtii ay ummadda soomaaliyeed ka dharagsan tahay dhammaanna dadku wax badan oo kamid aan hore ugu cadaynay kenya 2005 ama 2005 ayay badayada si sharci daraa iyadoo sharci iyada u gaara iyo xuduud iyada u gaara ay samaysatay markay samaysatayna haddana waxay ku abaalmarisay oo ay siisay shirkado ajnabi ah oo ilaa 6 gaaraya in ay uga sameeyaan sahan iyo cilmi baaris ku sameeyaan kadibna dowladda soomaaliya waxay ka warhashay arrintaas ayay marka bilowday in ay arrintaa ay ka hadasho waqtigaas ayaana ugu horreysay mashaakilka badda soomaaliya iyo kenya waana laga wada hadlay oo soomaaliya iyo kenya labada dowladood ay ka wada hadleen ilaa iyo 2009 ilaa hadda ayaa wada hadallo si kastaba ha noqdaan ay u socdeen kenya si xadguduba ayay baddeena iyo dhulkeena usoo xadgudubtay markii aan niri dowlad ahaan aan niri ka baxana kama garaabin sida keliya oo markaa aan xuquuqdeeda ku raadsan karno civilized manner ah ama qaabka caalamiga ah oo adduunku waa isqabsi u dhici karaa dhul baa laisku qabsan karaa dad baa laisku qabsan karaa hanti baa laisku qabsan karaa resource baa laisku qabsan karaa sida keliya oo lagu kala bixi karo ma aha dagaal ma aha labada dowladood oo cilaaqaadkoodii dowladeed iyo diblomaasi iyo nabadgelyo iyo burburo ma aha waa sida keliya ugu habboon waxaa weeye in aan sharciga aan isla tagno ciddii xaq u lena la siiyo marka dacwadda waa gudbinay maxkamadda caalamiga ayaan u gudbinay iyagaana laga sugaya hadda jawaab inay kasoo bixiyaan kadibna dooda dacwadda afurmi doonta waxaana aaminsanahay inaan ku guuleysan doono anagu go-aanka baarlamanka waa ayeedsanahay wax wada hadalna lagama gelino anaguna kama gelino gorgortana kama gelino xildhibaanaduna taas way miday ka hadlayaan ama inaan xuquuqdayada raadsano xildhibaanadana ma diidana ummadda soomaaliyeedna ma diidana gorgortana ma aha sababtu waxa weeye dhulkayagii waana lagu qabsaday fadayadii waana lagu qabsaday dowladda kenya ayaa lagu qabsatay miyaan uga aamusaynaa marka miyaan u daynaynaa ma waxaan leenahay lagama hadli karo waxaan oranaynaa haddii laga hadlo qaa'in wadannimo iyo dhulkii waa la gatay waa maya haddii laga aamuso way sii lahaanaysaa kenya way sii yeelashadeeda ayaa sii dhab noqonaysa shirkada ajnabi ah iyo qandaraasyo ku siisay ilaa 2005 kii ku jirtay marka ha laga aamuso cid ku doodaysa oo soomaaliyeed inaysi jirin baan u malaynayaa xildhibaanaduna isku beej ayaan arrintan ka saaranahay isku aragti baan ka nahay gorgortana kama gelayno annaguna gorgortan ma aha waxaan maxkamadda u tagnay waa xaqayagii inaan helno sideedaba garsoorayaasha ama ciidan ha noqdo ama madani ha noqdo garsoor qofriga labada dhinacba ma qancinayo nayjirka garsoorka ayaa in aanay labada dhinacba ku qancin dhinacii aan laga xukmiyo ama xukun ku dhaco mar walbaaba cabasho iyo cadaalad darra ayuu sheeganayaa xataa hadduu uu si xaqa looga xukumay marka cabashada badan oo garsoorka laga cabanayo ma aha dhammaanteed inay tahay xaqdarro laakiin waa cabashada caadiga ah qof waayey siduu asagu rabay cadaaladii siduu asagu u arkaya arki waayey waa laga yaabaa in lagu xadgudbay waana laga yaabaa in xaq looga xukumiyo marka nayjirka dacwadda iyo garsoorka ayaa ah in laga cabo